halmadowhi gaadiyo quraan hayo reeban haraadnimiyo hoyaala gabayhay iyo maanfo nin kastaa naftiisa hafro ee hoda aniga wele jarabo uu ahaa inkastoo dee sharciyada islaamka qof tegay oo dhintay in laga hadlo ama taariikhdiisa iyo xumaanihiisa laga sheekeeyo aanay wanaagsanayn oo ilaahay tilka ummatun qad khalat laha ma kasabad walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun kuwaasi waxaan uma tagtay waxay samaysteen ama shaqaysteen iyaga galabsaday idinkuna waxa shaqaysataan baa leediin waxbana leedinka weydiin maayo waxay shaqeeyeen marka waxa weeyaan iyadoo ay tahay haddana dee taariikhda marka laga sheekaynayo inagan kuma fogaanayn waxa la tilmaamaa waxyaabaha psychology ahaan dadka ku qabsaday waxa ka mid ahayd horta dee nin ka xadaaradsan oo ka aqoon badan buu ahaa oo xaggaa dee maaragtay ka aqoon badan oo ka heer sarreeya maca daalika nin aftahan oo gabayaa ah buu ahaa waxyaabaha bulshadu ay qiimayn jirtay berigaana gabaygaa ugu weynaa wuxuu kaloo ahaa wax la toosh iyo wistacadar deedna habeenka jimca intuu meel yaroo taagoo baxo go'a madax iyo manjaa isku duubo iyo tooshka ka bigsiiya cidina alaabtiisa ma baadhbaadho markaase ilaa shiiq wuu ka ahaa habeenka jimcaha wuu siraataa dabadeedna weli ahaan baa laga aaminsan yahay cadarkana waa sira taabsiiyaa dee bariiskaaba soo ureeya dabka cadarna hadalkiisa badaa marka waxa weyn cadarkaasina waa soo kankamaayo magaciisuna maxamed baa la odhan jiray marka taasina waxyaabo badan oo yacni lagu ixtiraamaa bay u kordhisay waxaa jirta marka qaarkood dadka wuu tijaabin jiray bal caqligooda iyo IQ-gooda iyo bal sida wax u fahmayaan laba nin baa u yimi baa leeyahay markaasay ku dhahaan sayid waxaan doonaynaa ciidamada aad noqoto waddanka shaqo kama jirto ingiriiskuna ciidamada shuruudo adag buu ku xidhaa qofka uu qoranayo dee meel laga shaqaystayo meel mushaar laga qaataa toona ma jirto isagu waxaa meel siduu doonaba xoolaha ku soo galeen dee ciidankiisa mushaar buu siiyaa wuxuu meelaha ka soo dhaco iyo wuxuu dad ka soo qaado iyo dee kulley xoolun bay qaataan dabeedna waxay ku yidhaahdeen waxaan doonaynaa inaad noqoto ciidanka wuxuu ku yidhi intuu laba nin ku daray buu ku yidhi nin waliba waxaan ka doonayay inuu walaalkii xabad ku soo dhufto dabeedna way israaceen labadii ninna waa la kaxeeyey laba qorina waa loo dhiibay mid baa siduu usii socday intuu qorigii cabeeyey uu baadilka ka saaray walaalkii ku geylaamiyo nafta kaga saaray kii kalena intuu ka soo saaray magasiinkiiba sida tabaashiirta intuu soo qaado saa ugu dhuftay deedna wuu soo celiyey waa la soo celiya ka warrama buu yidhi waxaan dee labaduba xabad bay ku dhufteen bal ka warrama buu yidhi say u galeen dee kana waa ka dhameeyey bay dhaan kana sidaasuu isticmaalay oo sida dee intuu soo saaray xabaddii ka soo saaray magasiinkii ayuu sidaa gacanta ugu qabto musaa ugu dhuftay kiibuu weydiiyey sii raaco markaasuu yidhi miyaanan kuga odhan waar xabad ku soo dhufo walaalkaa suu yidhi dee mee waad ugu tidhi suu yidhi haddaa maxaad u dili weydaa masuu yidhi imaad odhan soo dila waxaad igu tidhi xabad ku soo dhufo kii markaa walaalkii dilayna nacas baa tee iska tag buu yidhi oo laba khasaaraa ku dhaco shaqadiina waa waayey walaalkiina waa waayey kii kalena walaalkiina waa badbaaday shaqadiina wuu helo wuxuu yidhi ninkani waxa weeyaan marka wax lagu sheego maankaaga la kaasho waa nin macquul ah wax loo sheegi karo dabeedna sidii buu ku shaqo geliyey mararka qaarkood waxaa la tilmaamaa waxaa loo soo diray 8 nin oo basaasiina oo la yidhi ikhtiyaal iyo shirqool bal ama ninkaa soo dila ama soo suneeya ama soo qabta ama soo qafaalo bal ninkaa ingiriisku uu soo diray 8 nin dabeedna nimankii buu su'aalo kala duwan weydiiyey uu kala kaxkaxeeyey wuxuu arkay inaanay waxba isugu toosnayn markii hore waxaa ciidankaanu doonaynaa mujaahidiinta ka mid noqono kadibna dabeedna wuxuu arkay inaanay dee waxba isugu hagaagsanayn wuu casuumay markii hore waxay la noqotay inuu laayo laakiin odayaashii markuu la tashaday ayay ku dhahaan iska sii daa mar haddaan wax ficila ku tallaabsan aad ka shakiday uun dee waynu iska celinaynaa nimankan deedna wuxuu damcay inuu sahay uga dhigo gabay oo ku fahamsiiyo waxay la socdeen uurkooda uu ka kalluumaysto deedna wuxuu yidhi 9 nin oo walaala ah sideenaas ila wada Soomaali baynu wada muslim baynu nahay 9 nin oo walaala ah sideenaas 8 isku bah tahay sidiinaas oo isku hadaf diin ninkuna bah gaar yahay sidaydaas 8 sira istida ninka sidiinaas ninkuna sirtii garay sidaydaas haddaynu siri sideynaba ma iska kala tagnaa sideedaba buu yidhi oo iska kala dhaqaajinaa dee ilaa fahmaye deedna sidii bay kaga yimaadeen marka adigu calaa kulli xaal ninkii marka ciidamada daraawiishka duulaan bay marba soo qaadaan abaan duulaa ciidanku waxa weyn ama hogaamiyaha dagaalku waa Ismaaciil Miroode gabayadiisa wax badan maqasheen dagaalkii marka dulmadoobe magaalada yar agteeda iyo qoryaalo buurta u dhaxaysa ee koof lagu dilay ciidan hogaamiyihii ciidamada ama abaan duuli ciidamada Ingiriiska ayaa kamid ahaa lagu dilay marka waa kii gabayga u tirinaya lahaada koof loo jiitay aan dunida joogayna bugaga ku aragteen marka had iyo jeer wixiisu waxay ahaayeen muu jeclayn hadalka caadiga ah ee marka iska caadiga ah
muu jeclayn laakiin wuxuu jeclaan jiray qofka la hadlayaa inuu gabay kula hadlo oo warbixinta uu ku siiyo isaguna uu jawaabta ku siiyo gabay oo gabaygaa uga fududaa hadalka caadiga aba gabaygaa uga fududaa hadduu qof la shaxayo gabay buu kula shaxayaa hadduu meel u dirayo gabay buu ku sagootinayaa haddii uu doonayo inuu waraysto wuxuu odhanaya gabay igu waran gabay meeshaad marteen iyo sidaa wax u dhaceen iyo ciddaad la kulantay iyo wixii ka hor yimi bal gabay igu sheeg oo gabaygaas uu aad iyo aad u tixgelin jiray marka adigu calaa kulli xaal dee taariikh fara badan baa hadhee ka laasan maayo nimankana waa intaan anigu ka hayee weliba aadna umaan baadhin taariikhdiisa ninkaasi halgan fara badan buu galay 1921kii waxaa la 1919kii bishii January 21keedii ilaa iyo 23keedii oo marna la 21kii baad marna la 23kii marna la 22kii baad waa bishii January 1919kii ayaa ciidamada Ingiriisku ku soo qaadeen weerar diyaarada ah iyadoo waliba xagga xeebta laftigeedan ciidan lagaga soo dejiyay oo xagga xiis inta maraakiib lagu soo raray iyo doonyo xaggaan ay ka soo weerareen ayaa dushana laga garaacay waana meesha qura ama xarunta qura ee Afrika ku taala ee diyaarado ay dawladaha reer Yurub ay ku weerareen marka waa taleex halkaas marka lagu weeraray kadibna dabadeedna marka nin Caamir la oran jiro kamid ah ciidamadiisa oo fulay ku xaman jiray ayuu arkayo de maartay ciidankii kamid ah markii la yaacay sayidkuna waa cararay ilaa naftu orad bay kugu aamintaa deedna wuxuu silaa hadhow baa lagu gabayaa lagu oranaya waadigi geesiga ah maxaad caga dhulka ugu xajin weyda la cararaysa dabeedna gabay buu maartay afeefa oo maartay uu iskaga sii warramayo uu bixinayo wuxuu leeyahay coomaadayaal duulay cadan ka keeneen cirkii iyo dhulkii baa cajabay cararaqdoodii Caamir waa saleele Caamir kana lahaa waa fulay Caamir waa saleele ana haatan caymadahe adiguba aqlaa leeyahay carar maxaa dhaama wiil ama waxana wax la xamili karaa يعني فوستا الله استعماله مركو حبض ريفل هذيل الردية قنبلة السوري ديا مركا قرية دقة حاي وحس الآن رصاصي علنيال توحي بدوش على جيم عركة على جسور شيء ديا وحنا مو عركة شيرين طبعا مركا على جسلا سوق تجي وحوام ببحي مركا إيمي يدل كا دقان كيسي أيو قبطي هالكاس أو مركا وآخر كي كل سجال بقول يكوبي لواتن كي بشي لبيتمنات كوبي لواتن كي يوكو جريودي halkaas markaa ninkaasi ku dhintay markii horena dhulka uu soo maray ilaa iyo gobolada markaa koonfureed markaa wuxuu ku soo arkay buu xitaa ka warbixiyay wax la ka waran dabeedna markaas uu arkay dad meesha joogo afaf adag ku hadlaya malaa maymaygan iyo waxaan u arkay deedna markaas uu fahmi waayay mise war waxaan maxaa la yaa tusbax mise tusbih baa la ilaa inta iskaga tagay wadi barita af gaalay af muslimiinuna ku yimaadaan waxaan garamaya ku hadlaysaan dabadeedna waxa la yiri ka waran baa la yiri dhulkii aad soo martay wuxuu nin dhintiyo nin dhoobay jira wax isma dhaamaane dhoobay waa dhulka nin dhintiyo nin dhoobay jira wax isma dhaamaane nin dhilmaan ya uurka u gashaan dhimana nooleen dhilmaayadu waa kanaacada loo yaqaan koonfurta nin dhilmaan ya uurka u gashaan dhimana nooleen Allah ayaa dhul lama caasiye dhaqan xumaa meeshuu Allah ayaa dhul lama caasiye dhaqan xumaa meeshuu marka adigu uu iskaga yimi dhul badan buu soo sarfay gareey ama soo ilaaleeyay oo isri bal ciidankaaga hadii halkan lagu jabiyo meesha ilaa waxa la sakaaranta koob ku jirtay koob kala sii daydayataa digeedkan laga saaro xagaad galaysa marka waxa weeyaan halkaas soo ilaaleystay ogaadeen iyo meeshii deegaankiisu ahaa halkaas markii daba waan baxay xilligaan idin sheegaya waa taariikhdu ay qoraysaa inuu ku dhintay tii Allah u naxariisto intaas baan ku soo gabageynayaa aad iyo baad salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh